Kusoo dhawaada barnaamij ku saabsan furayaasha qalbiga. Waxaynu ka hadli doonaa 6 qodob. 6 qodob haddii aad sidooda u dabaqdid, waxaan ku hubaa in gabadha aad la sheekaystid ama jacaylkaaga ah ama xaaskaaga aad si rasmi ah aad qalbigeeda ula wareegi doonto haddii aad 6 qodob aad si fiican u dabaqdo. Gabadhu abuur ahaan waa xasaasi. waxa aanay jeceshahay kalgacayl iyo shucuurta naxariista iyo kalkoolinta ay udubdhaxaad u tahay nolosheeda marka loo eego xiriirka ay la yeelanayso ninka ay damaca guurka ka leedahay. Waxa ay markastaba ku dadaashaa in uu noqdo mid kalgacal xooggan ku dhisan, laakiin in uu ninku gabadha qalbigeeda hanto waxay u baahan tahay furayaal dhowr ah oo weliba isticmaalkeedu xirfad iyo caqli badan u baahan yahay. Waa arrin aan maanta la wadaagayno daawadayaasheeda cisiga iyo sharafta naga mudan. Kusoo dhawaada. Qodobka koowaad waa dareen. Qalbiga haweenku waa sida ubaxa, markaa waxaa waajib ah in loola macaamilo si taxaddar badani ku jirto. Waxa ay markastaba u baahan tahay jacayl iyo in la dareensiiyo daryeel iyo kalkoolin. Ninka doonaya inuu isjeclaysiiyo waa inuu tuso in jacaylku ka sokow uu yahay ruux daryeela, xanaaneeya iyo kolkoolinaya inay ku aragto waxaas oo dhan. Qodobka labaad waa isfaham. Qaylada iyo rabshadu gabadha waxba uma tarto, umana soo kordhiso dabeecaddeeda, waxbana kama beddelaan. Isfahamka ayaa ah furaha ugu muhiimsan ee nolol qoysku oo guuleysta ah. Sidaa awgeed, waxaa nin kastaba ku waajib ah inuu fahmo waxa ay dhab ahaan xaaskiisu doonayso iyo inuu si dhibirsan ula macaamilo. Xoog la isku adeegsado iyo madax adayg waxa ay sii horinayaan colaadda. Qodobka saddexaad, danayn. Gabadhu sideedaba waxa ay jeceshahay ninka ay ka dareento inuu xaalkeeda iyo nolosheeda ama muhiim u yihiin. Ninka qalbigeeda hanta waa ka u muujiya sida ay muhiim u tahay. Waayo cadowga koowaad gabadhu waa wehel la'aanta iyo cabsida iyo kalsooni darrada qalbigeeda ayuu burburiyaa. Ninka doonaya inuu gabadha hanto waxaa la gudboon inuu haasaawiyo, kaga farxiyo, tusana inuu yahay wehel garab taagan. Qodobka afraad waa kalsooni. Ninka doonaya inuu gabadha la haasaawo waa inuu ku dadaalo inuu gabadha tuso inuu yahay qof qalbigeeda u dhow, ku dadaalo inuu aad kalsooni ku abuurto oo ay iyadu nolosheeda udubdhaxaad u tahay. Haddii aad aragto mushkilad haysata, tus inaad garab taagan tahay, wixii aad la qaban kartana diyaar u tahay. Ogow in ay kalsoonidu tahay arrinta ugu muhiimsan ee jacaylka laga kabsan karo qalbiga gabadha. Qodobka shanaad, ilaalin. Gabadhu waxa ay nafsi ahaan dareenta in ay u baahan tahay wehel ammaan ah. Tus in aad diyaar u tahay in aad dhinac kastaba adigu waardiyeynayso. Ku hor imtixaan ehelkaaga, asxaabtaada iyo carruurtaada oo iska jir in aad hortooda wax aan fiicnayn iyo canaan ugu soo jeediso. Iska jir in cidi horteeda kugu tidhaahdo erey dhaawacaya shucuurteeda, waayo gabadha waxay jeceshahay ninka ay u aragto inuu garab taagan yahay. Qodobka lixaad kalgacayl. Inkastoo uu dheeraado waqtiga guurku, haddana gabadhu kama weynaato jacaylka ay u qabto in sayigeeda ka maqasho ereyga waan ku jecelahay. Ha ka gaabin inaad indhaheeda eegto oo aad kelmadda ku tidhaahdo si niyad ah. Da' kasta oo ay tahay waxaa hubaal ah in ay dib qalbigeeda u furi doonto. Ruuxdii firfircooneyd iyo kalgacaylkii dhallinyarnimo dib u aqbali doonto haddii markastaba ereygaas aad joogtayso. Qalbiga gabadhu waa sida ubaxa, laakiin isagu waraabkiisu waa kalgacalka
oo loo muujiyo, haddii uu waayana dhaqso ayuu qaadaa. Fadlan muuqaalkan hadduu ku qanciyay, subscribe garee, like, share, asxaabtaadana la share garee.